wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa shacabka u hambaliyeeyay munaasabadda Ciid al-Adxaa. Dhanka kalena waxa uu ka hadlay dalxiiska maalmaha ciidda waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin wa salaatu wa salaamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waxaanu la soconaa inaynu ku jirno maalmihii khayrka lahaa. Barintana ay tahay maalintii Ciidka. Maantana iyo ayaamihii ka horreeyana dadka intiisa badani ay sooman tahay. Ciidda Carafeenu maanta barinta galeynaa imika waynu ku dhex jirnaa. Marka ugu horeysa dhammaan shacabka reer Somaliland siday u dhan yihiin dhammaan gobolada dalka ku nool dhammaan daafaha adduunyada dabadeedana ku nool waxaan u soo jeedinayaa hambalyadii Ciidda Carafo. waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair. ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in ciideeda aynu ku wada gaadhno inakoo nabad qabna inakoo horumar intan ka badan gaadhnay inakoo maxaan ku idhaahday ubadkiina iyo idinkuba dhammaanteen aynu wada caafimaad qabno inaynu ilaahay u ina gaadhsiiyo ciidda ku xigta. waxaan aad iyo aad hambalyo gaarana u dirayaa dhammaan noocyadeena ciidamada qalabka sida ee mar kasta habeen iyo maalin aad iyo aadka ugu howlgal nabadgelyadeena iyo difaaceena qarannimadeena iyaguna aad iyo aadka ugu howlan. waxaan leenahay iyaga iyo xaasaskoodaba ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr. qarankiina u shaqaynaysaan waxaan rajaynaynaa in hawlihiina sii laabtaan. waxaan idin rajaynayaa ciidda ku xigta inaan dhammaantiin inaynu ku wada ciidno nabadgelyo tan oo kale ah ciidda ku xigta. had iyo jeer waxaa caadi ah oo daayarta dhalinyaradu ay caado ka dhigteen una baahan yihiinna cidina aanay ka mamnuucaynin in maalmahan oo kale ciidda maalmaha feestooyinka ee dabaaldega inay dalxiisaan oo qaarkood waxay tagaan badda qaarkoodna waxay tagaan maxaanku dhahday magaalooyinkay tagaan oo magaaladay degan yihiin bay ka yimaadaan oo magaalo kale tagaan. dhalinyarada waxaan leenahay kow marka ugu horeysa waqtigeedii baa joogtaan laydinkama mamnuucayo hase ahaatee nabadgelyo darro fara badan bay keentay maalmaha dalxiiska aad samaysaan. wadooyinka shilal fara badan baa ka dhaca. shilalkaasna dee qadar allana way jiraan hase ahaatee taxadir xumo fara badan baa shilalkaasi ay ku dhacaan. gaadiid aad iyo aad xawle aad iyo aad u dheer ku socda ayay tagaan. badda shilal baa ka dhaca iyadoo maxaanku idhahday aan dabaal la garanaynin baa badda la galaa. dhalinyarada waxaan leenahay dhalinyaronimada fudeydkeedu yuu idin qaadin. badda ha laga taxadiro wadooyinka maristoodana ha laga taxadiro mar walba sida sharcigu odhanayo. sharcigu muxuu odhanaya wadada qiyaas baa lagu maraa sharci baa lagu maraa. badda marka la joogo nidaam baa loo dabaalanaya. waxaan ku dhahdaye haddii aanad garanaynin cid garanaysaa la raacaya. deegaanka aad tagteen baa maxaan ku dhahday la isu sheegaya. waxaan doonaynaa inaynu mar walba caqligeenu si taama u shaqaynayo. safarada marka la gelayo taxadirada lagaba maarmaanka waa in la sameeyo. aad iyo aad mahadsantihiin bahda miidiyuhuna waa mahadsantihiin. Nimco Maxamed oo cali telefishinka Iftiin Somali TV.